musharax madaxweyne galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa maanta muqdisho ku shaaciyay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamul goboleedka galmudug. munaasabaddan maanta musharax qoorqoor ku shaaciyay musharaxnimada madaxweynaha galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo marti sharaf kale. ugu horeyn ayaa waxaa munaasabadda ka hadlay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane cali maxamed geedi, waxaana uu sheegay in qoorqoor uu yahay waayo arag u qalma madaxweynaha maamulka galmudug. inta aan ka aqaano waa aqoon-yahan, waa waayo arag, waa nin dowlad jacayl ku jiro oon ogahay inta marxaladood soo maray, inta goobuu ka soo shaqeeyay ilaa hadda uu xil dowladda ka hayo. aanan hubo xilal uu mudnay inuu uga tanaasulay qaranka hore u socdo. senator cabdi axmed dhuxulow dhagdheer iyo senator cabdi xasan cawaale qaybdiidi ayaa sheegay in qoorqoor uu yahay musharax ku habboon inuu hogaamiyo maamul goboleedka galmudug. axmed cabdi kaariye soo dhawow musharax madaxweyne, waana kuu rajaynayaa inaad guulaysan doonto. galmudug 4 sano ay dhibtootay, inaad nala ducaysiin oo tiraahiin ilaahay nooma soo celsho dhibaatadaasi, aamiin nala dhahay. anigu waxaan leeyahay musharaxa madaxweynaha dowlad goboleedka ee galmudug axmed cabdi kaariye soo dhawow baan ku leeyahay. waxaan aad iyo aad rabaa inaan hortiina uga mahad celiyo axmed cabdi kaariye qoorqoor geesinimada uu dhigtay meel galmudug oo uu ogyahay waxaa ka jiray 4 sano aan soo dhaafna waxaa ka jiray inuu shaarka usoo siibto oo yidhi I'm the one daaweynaya waa aniga inuu yidhaahdo waa geesinimo. aniga murashaxa aan garab istaagsanahay waa axmed cabdi kaariye. galmudug beelo fara badanaa degaan. waxaan rabaa inaan maanta halkaan ballanqaad uga sameeyo murashaxa madaxweynaha galmudug. 2 beel oo ka mid ah oon dhiig wadaag nahay 20 cod ayay ku leeyihiin, anigana 5 baan ku leenahay. 25kaas horta anaa bixiyey, markii ilaa la socotiina u baahanahay, marka inta dhiman ha loo dhamaystiro madaxweynaha. musharax axmed cabdi kaariye qoorqoor oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa soo bandhigay waxqabadkiisa siyaasadeed ee galmudug, isagoo ugu dambeyn ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka galmudug. culumaa diinka, hogaamiye dhaqameedyada, dhalinyarada, haweenka iyo waxgaradka reer galmudug waxaan leeyahay galmudug waxay ku jirtaa xilli xasaasi ah oo laga gudbayo marxalad loona gudbayo marxalad kale. sidaa darteed go'aan kasta oo maanta la qaataa wuxuu saameyn ku yeelanayaa mustaqbalka fog. waxaan aaminsanahay in maanta ay reer galmudug kala dooranayaan hoggaan midnimo iyo hoggaan khilaaf. hoggaan nabadeed iyo hoggaan qalalaase. hoggaan horumar iyo hoggaan dib u dhac. hoggaan kooxeed iyo hoggaan shacab. waxaan rumaysanahay inay reer galmudug gaareen bisayl iyo khibrad ku filan oo ay kaga weecan karaan waddo la yaqaan meesha ay ku dhammaanayso, oo ah kala qaybsanaan dad iyo dal. maanta waxaa loo baahan yahay waayo arag isku wadi kara galmudugta cusub.